واتهاي صاحبada aynu hawada ku saaxiibnayo kusoo dhawaada muuqaalka xiga ee channelka Hanan English Official. واتهاي isku soo noqod waan saaxiibay waxaan filayaa inaad ku soo dhawaatiin dhamaantiinba inta nagu xiran iyo inta hadda nagu soo birta waxaan leeyahay ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad channelka Hanan English Official. sida aad taatalka ku soo aragtay maanta waxay diiradda inoo saaran tahay inaynu kala saarna laba jumladood oo ay arday fara badan oo Soomaali ah ay ku wareereen macnahooda iyo qaabka loo tarjumo. u diyaar garow muuqaal cusub. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe taabo kadibna adigoo mahadsan haddana gambaleelka furo kadibna all sii dooro si aad u hesho muuqaalada xiisaha badan. waayahay labada verb ama labada sentences ee jumlada kale ah ee ardayda badan ay ku wareereen waxay yihiin labadan jumladood oo ah I stopped smoking it iyo I stopped to smoke it. labada jumlad subjectiga iyo verbku waa isku wada mid. I stopped ayay ka wada bilaabanayaan balse macno kala duwan ayay leeyihiin labadooda. macno kala duwan oo aad u faa'iido leh aad u weyn ayay leeyihiin. kana horta wuxuu yahay anigu stopped waan joojiyay buu yiri. smoking it ee sigaar cabid waan joojiyay buu yiri anigu. maadaama kan la joojiyay kan uu leeyahay anigu waan joojiyay ee sigaar cabid kani sidaad u jeedo ayada waa subjectiga stopped waa verbkii oo ahaa bbgii kana markaani waa noun oo ay smoking smoke verb ing lagu darin waxa la yiraahdaa gerunds. saa hore cashir aan ugu saaxiibo haddii aad danaynays xiisaynaysana dib ugu dhawo cashirkaas si aad wax badan ugu fahanto. marka I stopped anigu waan joojiyay smoking cabidda waan joojiyay it sigaarka aan cabay waan joojiyay. midda maadaama ay joojin tahay tanna waa cagsigeedii maxay ka dhigan tahay iyadana anigu buu yiri stopped waxaan u istaagay waa marka I stopped waxaan buu u istaagay anigu to smoke it inaan cabo sigaarka ayaan u istaagay. labadooda marka farqi weyn ayaa ku kala jira. hadda waxaan filayaa in farqiga uu ku bayaanoway dib dambana aysan ku dhibi doonin insha Allah. waa Maxamed Cumar Ali Maxamed Arkay oo idin dhahaya inta muuqaalka kala kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.